السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كينا سكي دعيساني فضلا هذا ولي سبسكرايب صار ماداشينا سكي دعيساني هذا صار فيديو كان لايك تصار وحنا عاوينيا انو دد بدن gaano hadda laga bilaabo fiidiyoga xalaal ayuu ku yahay hadda labada soo sameysay sheekadeyni aan u guda galno xaga waxa taagan naajiniyada waxay katiinadeedii ku tuuraysaa dhulka meeshaas ayaa ka soo baxaysa gabar yar oo ku libisan dhar cagaar ah waxayna ku tiri waxa rabaa inaad ii shaqaysiin gabadha ayaa tiri si wanaagsan hooyo kani waa wiil loo yaqaan Sham waa wiil ka sheekeeya sida aanoo kale sheekooyinka xiisaha badan waa wiil shaqaysta ma noola aabiis iyo hooyadiis dadka tuulada degan ayaa u ah aabe iyo hooyo waxbuu gataa waxbuu cunaa waxbuuna qaataa hadduu rabo maalku firaaqo leeyahay ciyaalka ayuu uga sheekeeyaa sheekooyin cajiib ah Sham markuu arko carruurta oo waalidiintood la socoto uu ka murugoon jiray maadaama uusan haysan family wuxuu aaday maalin maalmaha ka mid ah qaynta si uu u soo qoro sheeko cusub wuxuu ku arkay gabar qurxoon gabadhaas oo iska qarinaysa Sham ayaa guda galay inuu gabadhii u imaado oo ku yiri istaji magacaygu waa Sham kaalay xaqan imow wuxuu ku dhahayaa anigu waxaan ahay wiil fiican dadkana ma dhibaateeyo aabiyo hooyo ma leedahay madaxa ayay ruuxaysaa oo u dhigantahay inaysan lahayn aabiyo hooyo markaas ayuu ku dhahayaa nakeen magaalada aadne weydiidaysaa oo leedahay magaalo maxaa ku falayaa oo wuxuu ku dhahayaa magaalo ma taqaanaa saa waxay leedahay way qoslaysaa saa wuxuu ku leeyahay guri ma leedahay waxay tiraahdaa haa wuxuuna siiyay lacag gabadhu way farxaysaa Sham ayaa yiri gabadhii ka dhigin kala walaashii camal markaas ayay calin soo goynaysaa oo u suraysaa koofiyadiisa taas oo u saalaysaa inuu maqlo meel kasta aado wuxuu maqlay ayadoo leh waan tagay hadda ayeeday ayaa aaday Sham ayaa yiri waan is arki doonaa mar kale insha Allah Sham oo socda oo raadinaya gabadhii ayay waxay ka soo maraysaa gadaal wayna kan xinaysaa dhulkuna ku dhacayaa Sham wuxuu ku dhahayaa gabadha waxa tahay gabar fiican oo mutaajileystada ku fiican xaqana uu isaashay inaa ku maqlo calintan waxa ku dhahaysaa anigu waxaan ahay gabar rooxana ma ihi qof caadi ah waa jeeda waxaan ka imaaday naagtiniyada oo ayeedayda ayadana qoysa ayadana wax ka siisa Sham ayaa dhahayaa waligay ma arkin gabar sur dheer oo saan u qurux badan oo maxaa ku diidaya hada chini tahay iyo hada wax kala tahay Sham gabadhii ayaa ku tiri nakeen ayeeday ayaan ku soo barayaa guriga ayaan ku geynayaa Sham markuu arko guriga uu absanaya wuxuu is leeyahay maanta xagee lagu keenay gabadha ayaa tiri ha cabsan ee soo gudub tani waa ayeeday aan ku geeyo ma ku qalanaysaa waxay ku leedahay waa sheekooyinka aad ka sheekaysid amal isla markiiba waxa goobtaas imaanaya ayeedii la sheegay gabadha ayaa Sham ku dhaysaa iska baro waatan ayeeday jiniyada ayaa tira dhaysaa Allah maanta rajadeeda ayaa i rumaysa gabadheedii yareen waa maasan tahay waligay ayaan ku rajoon jiray wiil aan helo ama qof aan qasho waa maasan tahay ayay gabadhu ugu celcelinaysaa maadaama aysan helin bil ama sanad waxay cunto wiilkii ayay rabtaa inay xoog ku soo geliso albaabka Sham ayaa iska fujinaya xooggiisa awoodiisa wuxuuna isku dayaa inuu albaabka furo balse uu u furmi waynayaa gabadhii yareed ayaa ku soo ordaysa oo u furaysa Sham albaabkii uu ka bixi lahaa Sham ayaa gabadhii yaraa ku dhahay waa maasan tahay maadaama aad badbaadisay abaalkaaga waxa ku gudana ma hayo gabadha ayaa tiraahday carar fako ana ka haye naagtan xunta orod carar ka carar intaad ordi kartid Sham wuu orday intuu ordi jiray Sham wuxuu aaday isla markiiba gurigiisii oo daaqada ku dul fakaray oo yiri maalintaas gabadhu
shaqool ayay ku dhiga rabtay mise naagta ayay ka haysan. Shaam oo iska walwalsan ayaa subaxdii dambe waxaa magaalada ka dhacday in dadku waayaan caruurtoodii. Nin ayaa yiri anigu waxaan waayay wiilkaygii. Naagtii kale ayaa tiri anigu waxaan waayay gabadhaydii. Shaam ayaa yimid subaxdii wuxuuna ku yiri war maxaa idinku dhacay meesha la taagantihiin. Shaam isla markii ayuu koofiyadii gashanaya oo gartay in ilmahooda ciyaalka laga xaday. Waxaana la hadlaysa gabadhii jiniyada ahayd waxayna ku dhahaysaa ilmaha ay raadinayaan waxay joogaan guriga ee imaada. Dadka ayuu ku dhahayaa ina keena aan aadne guriga saaxirada waxaana soo qaadataan dab. Habeenkii ayay imaanayaan afartoodiba waxayna gargaraacayaan guriga waxaana ka furaya albaabka jiniyadii. Waxayna ku dhahayaan nasiya ilmaheeni. Waxay ku dhahaysaa soo bax baarta wakaas gurigeegii. Guriga ayay u tilmaamtay waxay leedahay meel waxba kuma jiraan. Dadka ayaa Shaam ku dhahayaa war maxaa beenta noogu sheegtay. Shaam ayaa la hadlaysaa gabadhii yareen oo ku dhahaysaa kor meesha ka duulay guriga kor ayay saaran yihiin. Waxaa isla markiiba soo dhacaya ilmihii yaryaraan. Mid ayaa ku jidhay armaajada midiiba gabadhii yareen ayaa qaadatay sixiradii oo la tagtay intuu Shaam qabsan. Naagtii dhashay gabadhaas waxay dhahaysaa isii gabadheeda isla markiiba afartii ayay keenaysaa meel kale oo cidla. Isla markiiba waxa imaanaysa gabadhii. Naagtii jiniyada ayaa dhahaysaa gabadhii ku dhahaysaa naag gabar yahay waa ay khiyaantay. Intaasoo sano ayaan soo korinayay korintaydu lax bacaad lagu dhisayay noqotay. Maamadu iga hadlanta laakiin naagtii dhashay gabadhii yareed ayaa tiri alla isii gabadheedii way kala tuurtay. Gabadhii ayaa Shaam ku yiri orod soo badbaadi gabadha yar. Gabadhii sixiroolada ahayd ayaa gurigii ka dhigtay mid liicsamaya ama saqalqolocsamaya. Naagtii ayaa gurigii la leeday oo gabadhii yarta ahayd kala tuurtay oo ayadana isbadbaadisay oo iska soo baaqiyay gurigii. Shaam ayaa ku yiri gabadhii waa guuleysanaysaa ee ku soco never give up. Kuwiina ayagana ayay ku hayeen sida uu yiri Shaam. Sidoo saas ugu waday Shaam gabadhii yareed ayay gabadhii jiniyada soo qabanaysaa oo u keenaysaa hooyadeen. Shaam ayaa ku dhahayaa intaas nagu filan ee naga keen meesha. Gabar yahay naga keen ayuu ku dhahayaa naga keen ayuu ku dhahayaa. Gabadha ayaa tiri haddaan naga keeno meesha naagtaas way dhibaataynaysaa oo nigu soo laabanaysaa. oo marka waa inaan aniga iyo ayadaba isla gubano oo bartaas ku wada dhimano. Shaam ayaa ooyaya naxdin daraadeed wuxuuna ku dhahayaa Allah ha isgumin. Gabadhii ayaa hadlaysa oo dhahaysa buugaas qaado oo ku qoro sheekooyinkaada cusub. Shaam wuu iska ooyaya gabadhiisina xaggaas ayay ku dhimatay. Magaaladii waxay noqotay mid barwaaqo ah oo aan cidna laga xadin mar dambe oo ay saas u noqotay magaalo nadiif ah. Waa u jeedaa Shaam wuxuu noqday oday wuxuuna sameeyay sheekooyin badan. Asxaabteeda qaaliga intaas ayaan ku soo gabagabeeyay sheekadeedii. Fadlan haddii ku anfacday sheekadan subscribe tayo like noogu deeq. Bye bye. Waa salaamanteen. Bye bye.